59 sano ayaa ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xorriyadooda la soo laabteen isla markaana israaceen koonfuri waqooyi ayaa munaasabad si weyn loogu weyneynayay qiimaha ay u leedahay kooda luul iyo shacabka Soomaaliyeed. xalay waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. munaasabadani waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wasiiro, xildhibaano, senataro, shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir iyo marsharaf kala duwan oo munaasabadani lagu casumay. munaasabadu intay socotay ayaa fanaaniinta walada waaberi waxay goobta ku soo bandhigeen heesooyin ugu hadlayeen kooda luul iyo muhiimadda ay leedahay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. munaasabadda waxaa soo gunaanuday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in midnimada ay muhiim u tahay guud ahaan Soomaaliya meel walba ay joogto. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay qanciso Somaliland tabashada ay qabto si meesha looga saaro kala qaybsanaanta. waxaan qabaa rajo fiican, waxaan qabaa in Soomaaliya ay midoobi doonto. waxaan gacmaha u furaynaa walaalaheena reer Somaliland, aabayaashooda dhaliyeena midnimada, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan u dabaaldegaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo awoodda midnimada ee leedahay oo halgamayaashaas iyo halyeeyadaasi ay aasaas uga dhigeen intaan sheegay, oo ahaa inay diideen gudnimo, inay quursi diideen. aasaas waxay uga dhigeen inay mid yihiin, inay midoobaan, inay u midoobaan cadowgaas ku soo duulay oo damcay inuu dhaqankooda bedelo, inuu luqadooda bedelo, inuu diintooda bedelo. waxay u heleen wax ka duwan waxa isticmaalka uu ku shaqaysto oo ah qaybi oo xukun, oo ku qaybi qabiil iyo qabyaalad, oo ku qaybi diin, oo dhaqan ku qaybi. waxay u heleen midnimo. waxaana gacmaha u fureynaa walaalaheena ee Somaliland in ay ku daydaan aabbayaashood ee dhaliyey gobonimada, aabbayaashood midnimada keenay, aabbayaashood oo sharafka Soomaali ay soo martay iyo magacii wanaagsanaa inay ku daydaan. maxaa yeelay waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan ee Soomaalida waqooyi ama Somaliland, qayb naga maqan ay noqoto, waa wax ka maqan. qofkuna hal dhinac kama socon karo, wuxuu ku dhammaan sariir. iyaguna sariir bay ku dhammaan, annaguna sariir yaan ku dhammaanaynaa. adduunkana waa ka hareennaa. anugu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo, inaan noqonno kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah, oo aanu kula dardaaranno dadka waalaheena reer waqooyiga ah ama Somaliland inaan ka tagno taariikh, carruurteenna uga tagno mustaqbal wanaagsan, caalamka aan la jaan qaadno annagoo mid ah. maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto horumar iyo hadday noqoto siyaasad. laakiin annagoo kala dhantaalan, annagoo kala maqan, waxaan ku dambeynaynaa carruurteena sidii hadda ay yihiin, inay qaxaan, qaxootiye ay ku jiraan, badda ay ku baaba'aan, xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan. anugu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo. anugu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar, siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka. munaasabadu markay ay soo idlaatay waxaa la isugu yimid barxadda xarunta madaxtooyada Soomaaliya, halkaas ugu dambeyntii calanka laga suray. shacabka reer Muqdisho ayaa mar qura maqlay markay saacadu soo gaartay 12 saqdi dhexe Buller, taasoo ay u maleynayeen in dagaal uu ka socday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, maadaama ay ahayd farxadda kooda luuliyo.